Okay, soo dhawaada dhammaantiin waa idin salaamayaa meel kasta aad joogtaan waa salaamantihiin. Videogii hore oo casharka Excelka waxaan ka hadalnay monthly income-ka iyo monthly expense-ga iyo saving-ka aan ku sameynay. Excel marka wuxuu leeyahay inaa wixiina graph iyo percentage u bedeli kartid oo ka dhigi kartid. Dadku waa kala duwan yihiin. Dadna figureska iyo lambarkii hadday arkaan bay jecel yihiin. Dad waxay jecel yihiin wixii inay percentage ahaan u arkaan. Hadda 7,300 ka baxday meesha qofka laga dhahayo. Wuxuu jecel yahay inuu dhaho okay 85% of my income expense iga baxa ama 20% ama 15% baa saving iyo aad oo kale wax noocaas. Marka maanta waxaan sameynaynaa anagoo isticmaalayno the same numberskii iyo income-kii iyo expense-gii iyo saving-kii anagoo isticmaalayno waxaan sameynaynaa graph oo qofkii maaragtay visual oo indhaha ku arkayo uu arkayo sawirkii uu arkayo iyo graafkaas haddana percentage maaragtay noo saaran yihiin oo arkayno percentage ahaan inta naga baxda percentage ahaan intaan save garayno. Okay, earned income-ka wuxuu noo ahaa 4,500 shaqada la aadayo 4,400 laga soo qaadanayo. Business income-kana wuxuu ahaa 3,500. Okay, marka hadda waxaa aragtaan total income-ka ama 100% income-ka waa 8,000. dhinacaana waxaa aragtaan 91% inay expense-ga baxay. 7,300 kaas waa 91%. 700 kan soo haray oo saving-ka ahna waa 9%. 91 plus 900%-gii saas baa loo kala jijibiyey. Maarag kan marka visual ahaan inuu arki karo this is 8,000 aan sameeyo ma fahant laakiin 8,000 maaragtay 100%-ga 91 waxay aadaa expense-ga baxda 9%-na waa save garaya. marka fiiri quruxda ay leedahay iyo sida qofka uu indhihiisa uga dhargaayo uu arkayo. marka wuxuu leeyahay qofku xisaabtamaya wuxuu leeyahay 91% inay iga baxdo wax sustainable maaha wax badan aan wadi kara maaha waa paycheck to paycheck. arrintan waa inaan wax ka qabto. wuxuu fiirinayaa meesha wax ka bedeli karo. hadda shaqo kaleeto saddexaad kuma dari karo. laba shaqo uu hayaa 8,000 oo ka sameeya. waxa maamulka hadda dhinaca keliya u furan waxa waaye inuu dhaho tan aan marka hore fiiriyo intaana shaqo saddexaad raadin expense-ga maxaan ka qaban karaa. tusaale ahaan wuxuu go'aansaday halkaas inay 2,000 u noqoto. ma garat Excel aan ku sameynayna waxaan leenahay halkaas 2,000 markaa nooga dhigtid expense-gana aan rabnay inaan jarno maxay noqonaysaa marka percentage-ka oo maaragtay expense-ga ah. waxaan tegaynaa daar mida what if waxba aan la iskaraynaa soo waxaan leenahay goals halkaas waxaan rabaa inaa iga dhigtid 2,000 xageerta inaa bedel. marka intaan itemyadan expense-yadan itemyadan expense-gooda aan rabaa tan aan wax ka bedeli karaa 2,900 kaas haddaan 1,000 siiyo ama aan siiyo maaragtay 1,500 oo kaleeto waa wax macquula iga aqbalayaan ma garat. marka waxaan leeyahay tan bedel okay marka wuxuu dhahay 2,000 markaa save garaysid saving-kaaga percentage ahaan waa 25%. expense-gii 91%-ga ah hoos u dhacay. expense-ga wuxuu noqday keliya 75%. 100%-gii 8,000-ka ayada waxba iskama bedelin. dhinacaan imo marka kuwa mortgage-ka wuxuu yidhi haddana waxaa siin kartaa 1,600 barfiir. marka inta idea oo fikrad oo hal mar uu isoo wada tuuray in 2,000 aan save garayn karo 25% ay noqonayso expense-gii 75% noqonayo total expense-gii 6,000 uu noqonayo halkaana aan ka dhigayo only aan mortgage-ka aan siinayo 1,600 si 2,000 kaas ay saafi u noqoto. qaybta channelka ku xiran waxaa aragteen monthly income iyo expense-ga figure ahaan markii loo sameeyo in haddana visual ahaan graph lagu darsan karo halkaasna laga maamuli karo si uu qofka indhihiisa ugu arko percentage-ka soo gala iyo percentage-ka ka baxa iyo percentage-ka u save gareeyo relationship-ka ka dhexeeya. waxaa inoo ballana channelkan iyo fiidiyoyada dambe ee aan soo geliyo. sidaas iyo nabadgelyo.